khataraha la rabo in Somaliland loo soo maleego qaasatan magaalooyinka waaweyn iyo cidda ka dambaysa ayaynu rabnaa inaynu u bayaanino shacabka jamhuuriyadda Somaliland laakiin se ugu horeen waxaanu leenahay ninka lagu dilay ceere gaabo dhammaan waxaanu leenahay shacabka Somaliland samir iyo iimaan Allah inaga siiyo naxariistii jannana Allah ka waraabiyo qaasatan ehelada iyo qaraabadii uu ka tagay waxaanu leenahay ma garanaysaa naxariistii janna Allah inaga waraabiyo idinkana sabir iyo iimaan Allah inaga siiyo taa marka halkaas aan kaga tago waxaan leeyahay oo la yaab ah si aad la socotaan habeen hore waxa ka dhacay magaalada Hargeysa niman sita garamaantii xisbiga kulmiye iyo calaamadii xisbiga kulmiye dabadeedna hub la soo baxay dabadeedna degmooyinka magaalada Hargeysa ka sameeyay qalalaaso haddaba waxaanu leenahay dhibaatada halka ay ka geysteen waxaan halkan ka cadeynayaa in oo xisbiga kulmiye iyo taageeradiisa inaysan shuqul iyo shaqal midnaba inayna ku lahayn sababtan waxaan rabaa in aan hadda u bayaasho reer Somaliland qaasatan reer Hargeysa xisbiga kulmiye habeen hore ololihiisii buu ahaa bal idinka nidiibe xisbiga kulmiye taageerayaalkiisii isku soo baxay si nabadgelyo ah miyaad ka filaysaan inuu qoryo qaato ee degmooyinka magaalada Hargeysa inay tagaan ay dhibaatooyin ay ka sameeyaan jawaabtu waa may arrinkaasna waxa ka dambeeyay xisbiga wadani waayo garanka kulmiye wala soo iibsan karaa calanka kulmiye wala soo iibsan karaa ulajeedka looga dan lahaana waxay ahayd in la iska hor keeno shacabka reer Hargeysa qayb ka mid ah iyo xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland waxaynu ognahay reerka Arab boqolkiiba 95 inay taageereen xisbil xaakimka kulmiye oo gudoomiyaha ka yahay Ilaahay raaliha ka noqday Maxamed Kaahin Axmed musharaxna uu ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xildiid Rooble iyo ku-xigeenkiisa ah Maxamuud Xasan Sacad Saajin sidaa darteed taageerayaalka xisbiga wadani garamaanta ayaga soo qaatay ee xisbiga kulmiye garamaanta xisbiga kulmiye iyo waliba calamada xisbiga kulmiye degmada ma garanaysaa Axmed Dhagax cidda waxa ka samaysana waxa weeye waa xisbiga wadani tada waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland qaasatan shacabka reer Hargeysa waxa iyo wax ka weyn ayuu soo wadaa xisbiga wadani tusaale waxa ah magaalada Hargeysa magaalada Boorama magaalada Berbera magaalada Burco magaalada Caynabo magaalada ma garanaysaa ceere gaabo intaas degmo oo waaweyn ee Somaliland xisbiga wadani waxay rabaan inay ka sameeyaan assassination lagana hor keeno shacabka reer Somaliland iyo xukuumadda sida iskugu dhacaan laakiin waxaanu leenahay reer wadaniyo way fashilantay arrinkiinu fashilu ba taagantiin tusaale waxayniya aan rabaa in aan u bayaasho shacabka Somaliland darayskii ciidamada RRU-da kaadiriintii xisbiga wadani way soo taleen dabadeedna waxaa la rabaa in shacabka intaas soo degmooyin aan soo tiriyay waaweyn in waxyeelo lagu gaarsiiyo dabadeedna la yiraahdo xukuumadda Somaliland ba ka dambaysa ay waliba waxay rabaan inay yiraahdaan Axmed Muuse Biixi ba ka dambeeya haddaba halkan waxaan ka cadeynayaa wax alla wixii ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda Somaliland inayna ka dambeyn ciidamada RRU-da iyo ciidamada nabad sugidda ee laakiinse ay tahay darays la soo tashay ee xisbiga wadani kaadiriintiisa ay ka dambeeyaan arrinka sidaa darteed had iyo jeer waxaynu arkaynaa shalay ilaa ma xalay arrinka waxa ka dambeeya nik inanka la yiraahdo Axmed Muuse Biixi shacabka Somaliland waxaan u cadeynayaa Axmed Muuse Biixi arrinkaas inuu shaqo iyo shuqul oo ku lahayn tusaale waxayni ah Axmed Muuse Biixi aabihii oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye inuu dad u soo jiida mooyaane inuu dad ka fogeeyo waa habeenkii xalay tagay taa horta maskaxda waa inaad gelisaan
had iyo jeer waxaad ku meeraysataan axmed muuse biixi baa waxaa ka dambeeyey degmada axmed dhagax wixii ka dhacay axmed muuse biixi baa ka dambeeyey no xisbiga wadani baa ka dambeeyey oo waxaynu leenahay shacabka Soomaaliland habla iyo inamaba iyo ciroolo waxaynu leenahay haddee wax dhacaan dharka dareyska ciidamada RRU-da waxyeello dad loogu geysto waxa ka dambeeya xisbiga wadani xukuumadda Soomaaliland iyo RRU shaqa iyo shuqul waxay ku leedahay haba yaraatee ma jirto axmed muuse biixina arrimahaas berri buu ka yahay wadani baa wuxuu rabaa inuu iska hor keeno shacabka taageerada u ah madaxweyne muuse biixi cabdi xildiid rooble iyo ku-xigeenkiisa oo ah maxamuud xasan sacad saajin iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee taageerayaalka xisbiga kulmiye ah iyo waxa la rabaa in la iska horkeeno xukuumadda annagana waxa waajib inagu ah in aan bulshada u bayaanino waliba waxaynu haynaa in ay samaysteen xisbiga wadani kaararka ciidamada CID-da la rabana in waxyeelo loogu geysto shacabka Soomaaliland ee hadhow la yiraahdo ciidamada CID-da ayaa waxa sameeyay oo waxa ka dambeeyay axmed muuse biixi war axmed muuse biixi ilaa xalay ilaa shalay ilaa saaka ayaa had iyo jeer afka ku haysa laakiin halkan waxa ka cadeynaya axmed muuse biixi inuu shuqul iyo shaqal mid toona inuu ku lahayn oo ilaahay igu ogyahay marka waxay leedahay shacabka Soomaaliland dhibaato kasta ay ka dhacda Boorama Hargeysa Gabiley Bawfirsa Berbera Burco Caynaba iyo Ceergaabo todobada magaalo wixii ka dhaca mas'uuliyadda waxa iskale ay dushana loo saaraya oo hadee mas'uuliyadda aan cid kale aan la qaadanaynin xisbiga wadani waayo markay qaracmeen shalay wixii dhacay maroor dilaac ay ka qaadeen ay harsan waayeen wax kasta ay sameeyeen ay garanka kulmiye soo xidheen calanka kulmiye ay soo qaateen waa taageerayaalka xisbiga wadaniye ee degmada axmed dhagax aynu ognaa waxa ay ka sameeyeen sida ay rabeen inay iskaga hor keenaan beelweynta arab iyo ma garanaysaa xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye ay ku fashilmeen waxaanu leenahay reer Soomaaliland waxa soo dhan waxa ka dambeeya waa xisbiga wadani sida darteed bulshada inaynu la wadaagno waa mid aynu ku qasbannahay bal idinka nidribe sababta ee ciidamada RRU dareyskooda ay u tashan maxay tahay waayo nimanka wadani ka tirsan taageerayaalkooda ee ma garanaysaa dib jirka ah ayaa la rabaa in loo geliyo dabadeedna la yiraahdo bal dadka laaya dadka magaca leh laayo dila xukuumaddana dusha laga saaro bal kaararkan ciidamada CID-da dadka soo sameeyay ayagoo forgery ah maxay rabaan in la yiraahdo kaarkaas lagu qabto kaarkaas bay siteeno waa ciidamadii ma garanaysaa la yiraahdo CID-da Soomaaliland dabadeedna shacabkana waxay iska hor imaanayaan xukuumadda iyo ciidanka iyo xisbiga in la iska hor keeno haddaba waxaynu leenahay reer wadani siyaasaddiina hadday heerka gaadhay horta waxaa tiin dad baqtiyay waa inaad meesha siyaasad idinka aan ku haynina annaga waynu ognahay meeshan in aad meel maran aad garaacanaysaan annaga waynu ognahay waliba waxaan ku darayaa taliyaha ciidamada qaybta ee gobolka Awdal hadday madaxa hadduu xanuuno ay tiisa noqoto cidda mas'uulka ka ah waxa weeye waa ninka la yiraahdo Arabeele ee taliyaha ciidamada qaybta gobolka Awdal ah xisbiga wadani baa ka dambeeya oo waxa ka dambeeya ninka musharaxa u ah odaga Siyaad Bara la yiraahdo anigu Siyaad Bara waa qaanaa odaga Siyaad Bara la yiraahdo Maxamed Aw Cali oo ahana musharax madaxweyne ku xogeen inkastoo wiligiis uu ku fadhiisanayn haddii ninka uu wax gaaro waxa mas'uulka xisbiga wadani ilma adeeradii sida wararka sildoonkeenu ku hayno ayuu ka soo adeejiyay waynu ognahay waxaanu leenahay ciidanka amniga jamhuuriyadda Soomaaliland lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa inay indhihiina meel fog ay wax ka arkaan dhagihiina waa inay meel fog wax ka maqlaan nimankan siyaasadda waa laga guuleystay ee xisbiga wadani
markaasay rabaan ummadda masaakiinta ah ee reer Somaliland ee kulmiye taageersan inay degmooyinka magaalada Hargeysa inay dad ku layaan dabadda shacabka iska hor keenaan annaga waxeeluna taas weynu diidnay yeelina mayno bulshada inaan la wadaagnana waa mid aynu ku qasbannahay annaga waxa danino dalkan sidoo nabadgelyo waarta uu heli lahaa faqashta annaga nagu dhex jirta oo waliba xisbigan wadani waxaanu u naqaanaa faqashta sidii hore loogu xureeyay Somaliland ayaa maantana loogu xureeyay Somaliland cidda aaminsan wadani inay tahay muwaadin wallaahi billahi tala muwaadin ma hay waa faqash annaga nagu dhex jira raba inuu dadka yagara inuu laayo xukuumadana ka horkeeno ma faqash baynu aaminaynaa ma faqash baynu dooranaynaa jawaabtu waa may manka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya dhabarka ka jabiyay baynu taageernaa no cidii taageertan waxaynu aragnaa inayna Somaliland deesir asal inaysan ahayn bal nimanka maanta raba inay ka dhex faa'iideystaan shacabka Somaliland ma cid la taageeri karaa no lama taageeri karo waxaynu aragnaa cidii wadani taageerta inay taageertay faqash xisbiga u heelan in qarankan uu difaaco horena uu difaacay maantana uu taagan waa xisbiga kulmiye oo ma garanaysa gudoomiye uu ka yahay ilaahay raaliha ka noqday maxamed kaahin axmed musharaxna uu ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi xildiid rooble iyo ku-xigeenkiisa maxamuud xasan sacad saajin sidaa darteed wixii shalay dhacay ilaa waqti xaadirkana fiidiyogan duubayo wallaahi billahi tala weyna salayihiin markaas waxay ku leeyeen Axmed Muuse Biixi baa ka dambeeya oo Axmed Muuse Biixi kama dambeeya waxa tiin dad hudur iyo beenta ku qaraabta waxaan u leenahay xisbiga wadani waa faqash noo dhex fadhiya magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama iyo Berbera iyo Burco iyo ma garanaysaa Caynaba iyo Ceere Gaabo eegada inoo dhex fadhiyo weyn lixda gobol ee Somaliland haddaad maqashaan wadani waa faqash hatta waxaan la reer Somaliland faqash wanaga iska erinay faqash waad garanaysaan maxasteynii bay laayeen eegada waynu iska xureynay ilaah baa inooga hiliyay rag baa dhiigooda u shubay maantana faqashtiba garan waxay soo xirteen wadani la yiraahdo war waxa isma jiraanay faqash sideedaba rabaaxshan baa bab lagaga siiyay ee faqash loomana qosol lamana taageero xisbiga wadani waa faqash weeyaan faqash boro hoosta ku wata marka waxay wanaag qiyaarta meel kasta ay joogtaan fiidiyogan si qaybiya dhammaan reer Somaliland waxaan leeyahay wax alla wixii dhaca waxa mas'uuliyadda iskala xisbiga wadani. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakatuh.